إلهي بقى مهدله إحنا كحين كي وزير هذا بقى ما أنت واحد نوفر مايا كالفردقي أو ما أنت عذر كان أدون كسرية كوفيد سجالة أوجي وشركة إنه قبسومي إنه قام ميرا كرفق فردنا هاب كان مقال كه إنترنت كه كوجرينو أما فيديو كونفرنس كه أجندة إنه بلاري ما أنت وحنا أقول حب بدن عذر كان سامية يصير له هرتجلها قاعد كأوان شوشني مدة كوبان أو هاوشي سبحان تاعي سيد الله سيحوش لها سيد الدوين كسو تشريت كا أما أيسو إبيين ده ترسو مال لا ضو هنتله أما إذا نقول عويه بس سيد ونسو قال لها أو يانا مشكلة ده وقلب كي لسو إبيين تكون بحنا أو ماري الله أو أديارديه سو قادينا يرادين قاعد كي بدونا راجعيهم مركوشانا كسو قادي فوق baltaana sida ugu dhaqsaha badan oo soo dadaweyna ayaynu eegi doonaa ugu dambeynna habka wacyigelinta sidii aynu xoojin lahayn ayaa inoo taala oo halka aynu doonayno inaynu ka galno iyo sidii loo xoojin lahaa dadka loo fahamsin lahaa shirkan golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu horeyn golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kalena wuxuu faahfaahin golaha ka siiyay halka ay marayso hawlgalladii lagula dagaalamayay qaadka kontrabanka ay dalka la soo gelinayo isagoo xusay wasiirku in gaadiid fara badan iyo qaad dhowr 20,000 oo kiilo kor u dhaafaya ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliisku dadka iyo gaadiidkii lagu soo qabtay qaadka kontrabankaana la horgeeyay sharciga iyadoo ay hore dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland looga mamnuucay in laga joojiyay qaadka si looga hortago fiditaanka cudurka coronavirus waxa kale oo golaha warbixin dheer siiyay madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoomiyaha guddida heer qaran ee ka hortagga cudurka coronavirus wuxuuna madaxweyne ku-xigeenku uu ku dheeraaday halka ay marayaan hawlihii ay guddidu u xil saareyd isagoo oo xusay in iyagoo kaashanaya guddiyada kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka dalka iyo guddiyo kale oo ay sameeyeen ay ku hawlan yihiin sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay soo saareen iyo sidii looga taxadiri lahaa in xanuunkani uu dalkeena ku faafo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tilmaamay in ay taageero ka geysan doonaan dadkii muwaadiniinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu saameeyay cudurka coronavirus dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba goluhu waxay dood kooban ka yeesheen xeerka maalgashiga qaranka iyo xeerka shaqaalaha dawladda waxaana dib loogu dhigay fadhiyada dambe si loo ansixiyo golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamiyeen in la diyaariyo dalagii wax soo saarka beeraha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si loogaga gaashaanto saameynta dhaqaale ee adduunka iyo guud ahaan adduunka iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hambalyo u dirayaan guud ahaan bahda caafimaadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalka weyn ay ugu jiraan sida ay uga hortagi lahaayeen cudurka coronavirus sidoo kale wuxuu goluhu hambalyo u dirayaa guddida heer qaran ee COVID-19 iyo guddiyada gobollada iyo degmooyinka oo ku hawlan iyaguna sidii looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka safmareenka golaha wasiiradu waxay bogaadinayaan hawlgalka culus ay golaha xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo la taliyaha madaxweynuhu ay ka wadaan deegaanka fadhigaab ee deegaanka Garadag iyo Ceelafweyn kuwaasi oo halka ugu sugan hawlaha lagu xoojinayo nabadgelyada laguna soo afjarayo shaqooyinkii halka ka dhacayay waxa kale oo ay goluhu bogaadinayaan hawlgallada culus ee ciidanka booliiska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada kale ee qalabka sida ay kaga hortagayaan dadka isku dayaya inay soo geliyaan qaadka kontrabanka isla markaana ay ku sugayaan oo ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee xuduudaha dalka ugu dambeyn waxa goluhu bogaadinayaa imaamyada labada masaajid ee masjidka Al-Huda iyo masjidka Geedgoble ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal oo hakiyay salaadihii jameecada muddada lagu jiro cudurkan safmareenka ee coronavirus taasi oo ay muujiyeen in ay la xajeclo weyn ay ka hayso dadkooda iyo dalkooda maadaama cudurkani ku fidayo isu